1 Xbidle laba qori anna qori uga qaad askarkan qori uga qaad labada qori inuu gatay oo lacagtii wuxuu ku ciyaaray 1 Xbid kan farsamo Urdun ayaa lagu tijaabiyay waana lagu maray okay meeshii hadii aan galnay oon u fadhiisanay oo wuxuu iridda ma taagan tahay waa soo laabay ana ka furay qoriga hor u qaat kana qorigiisa xisaab kala dhiman ayaa lagu dhameystiray habeenii maalin uu soo mari jiray asagoo saraakiil booliis la socdo gaari wato biskoolada u saaran yihiin aqoonsigooda inay tusaan jeekimo maadaama saraakiil booliis ay yihiin wax hadana meesha ka shaqeeyaan aan aqaano waan deen jiray ninka maalmaha kamid ah ayadoo markaa maqrib laga baxay 12 saac iyo bar camal ay tahay salaada maqrib laga baxo raaskiina uu gobolka sii dhici rabo shaqo ay taalo u yimid meeshan ka shaqeeyay waa jagboonti baabuurtan baara jeekima markuu ii imaado wuxuu yirinayo waxaan ka rabaa maqaayadan ay5 maqaayad yiraahdo ku taal buudooyinka guri ka soo horjeedaan rabaa uu dhahay yani iraac ama qoriga isii aniga maadaama ashtal unaga aan ka ahay ciidan ay ila joogeen qori aan watay waxaan isla sargaalka maadaama sargaal booliis uu yahay naftiisii adayicine xataa ay difaacay qorigaaga sidii qori ku siiyay lambarkiisu ii reebay waraaqada dukumeenti uu waday oo nin muxuu ahaa u shaqeeyo meesha yiraahdo bangiga oo passport service u bedelaya xataa waraaqadu ii dhiibay uu yirinayo waraaqadahan ay sii hay roob xagana wada ay iga qoyin haddana qori ku keenaa sidii qori ku siiyay cabaarki bacdi waa wacay wuxuu yirinayo waa wali arintu ay la fogaatay ee wax yar idul qaado kabacdi leefkii uu iga qaban waayay lambar kale aan ka wacay wuxuu waa run aan ku sheegay waxaan joogaa Madiino cabaarki bacdi aan kugu imaanay waa ku bariya walaal idul qaado shaxdan si aadan ugu wareerin bal haddaba ila soco xidigle Maxamed Tahliil Cabdi baaray hay'adda dambi baarista booliiska ka tirsan CID ma diidana in shacab iyo ciidan buu isku dulmaray waxa uu lahaa ka guul keenista ciyaaraha kasiinooyinka ee online-ka lagu soo daray mudan garsoor waa jirtaa qoryaha in aan qaatay waxa ku soo heray lacagta ay sheegaysi $400 iyo $322 midda $320 lacagtaas dhamaantooda ma qabo waa lacag $165 ka qaba lacagtaas tan $400 ane kama wada qaadanin mid lacag $260 oo ii dhiibay inta kale ka isticmaalay hotelka oo degnaa ma ahane toos uu ma wada qaadan haddaba 1 Xbid bal xogaa sharxaad ah naga siiyo Maxamed Cabdullaahi Khaliif ku xigeenka xiraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudan gudoomiye eedeysanuhu wuxuu isticmaalaa aaladda loo yaqaan 1 Xbid application kaas telefoonada ku jiraan waxa loogu talagalay khamaarkii lagu ciyaari jiray kasiinooyinka iyo baararkii oo application laga dhigay application telefoonka lagu shubay waxa loogu talagalay qof kasta inuu telefoonkiisa ka isticmaalo application kaas mudan gudoomiye waxa lagu ciyaaraa geemam oo lacag laga helo sidoo kale waxa la saadaaliyaa ciyaaraha la saadaaliyaa kooxdana badinaysa ama waxay ku dhamaanay draw oo ah yaani ever ku dhamaanay waxaas waa wax lacagta laga helo baaraha kiiskan ayaa garsoorka ciidamada qalabka sida uga sheekeeyay sida ay isu saaran yihiin farqaha dambiye ee uu eedeysanaha u xiran yahay sidoo kale waxa cadeemo ka qoran oo ah wareysan mudan garsoore maamulaha hotel New Fatxi wuxuu noo sheegay in eedeysanaha hotelkiisa uu soo degay isla markaana oo deganaa muddo 7 cisho ah intuu deganaayna oo yiri warqad baasaboor oo magac laga bedelayo anaa ku soo dhameenayo oo lacag isaguna ugu qaatay lacagtaas oo gaaraysay markii la isku daray hotelka iyo lacagta oo ka qaatay oo magac bedelashada baasaboorka $400 sidoo kale mudan garsoore waxaa jirtay in eedeysanaha oo degay hotel lagu magacaabo isagana Taleex isla markaana mar walba oo ay weydiiyaan lacagta cuntada maqaayada iyo hotelka uu dhahay akoon oo international ee sheegta lacagta nigulasho aniga waxa u shaqeeyaa CID badi dhalinyarada ayaa si waliya u isticmaala abkan waxaana daayirta qaar ay rumaysan yihiin in shar iyo xogaa faa'iidahaba uu wada xambaarsan yahay xirlaaliye Maxamed Cabdullaahi Khaliif ayaa maxkamadda weydiisay in laga gaaro kiiskan xukun adag
si ay badbaado ugu noqoto badqabka hantida ciidanka iyo dhoorsanaantooduba. mudan gudoomiye eedeysana wuxuu isticmaalayay geemka loo yaqaan diyaaradda lacaga la saartaa way kacee markay kacdo lacag faa'iidaha ku socoto saacad kastay qarxi kartaa haday qaraxdo lacagtaasay waa eber waxa gelisay waa ka dhuntay mudan gudoomiye eedeysanuhu labada qori wuxuu ka bixiyay $1,500 sidoo uu qiraalkiisa ku cadeeyay 1,500 wuxuu geliyay diyaaraddaas wana kisbidkaas uu geliyay wax faa'iido maanta uu ka hayna ma jiro sidaa darteed wuxuu halis geliyay askartii qoryaha ku shaqeysanaysay naftoodu halis geliyay qoryihii uu ka qaatay suuqii uu geeyay sidaa darteed waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa mudan gudoomiye inay eedeysanaha ka qaado tilaabo cad ay ku xukunto qodobadan ku soo eedeynay si ay tusaale ugu noqoto ciidanka intiisa kale maxaa yeelay waa ogtihiin one exhibit ayantan culays ku haya ciidamadii mushaarka markay qaataan oo dhan way geliyaan ciidanka markay geliyaan oo lacagta laga qaato oo laga cuno waxay qasbee in muxuu ahaa guriyihii ay dumaan mas'uuliyad darro ka dhacdo ilmihii wax la siiyay la waayo caanihii uu go'o kadibna ay ciidanku sameeyaan yani turufa sida saad sarkaalka uu sameeyo kale oo lacag turufeeyo oo lacag raadiyo maanta oo dhan mudan gudoomiye waxaan mar labaad si sharaf leh uga codsanayaa maxkamadda inay eedeysanaha tilaabo ka qaado maxkamadda waa maasanta qareenka ayaa isna codsaday in aan lagu dheereen maadaama eedeysanahaba aqbalsan yahay dembigiisa 496 iyo 205 qodobadaas isagaaba qiraal oo ah maadaama isagu qiraal u yahay difaaciga ma banaana waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa inay sifaalaha dembiga fududeyso u fiiriso qodobka 61 maxkamaddu ay asaalata maadaama cadayn 663 ay ku cadayn ay u keenin maxkamaddu in ay maxkamaddu hadii alla ku idmaayo qodobkaas 100 sidoo uu qabo qodobka 42 faqradiisa 7 inay maxkamaddu u fiiriso sifaalaha dembiga fududeeya maxkamaduna waa mahadsantahay gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysane xidigle booliis maxamed tahliil cabdi intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso kiisku waa noo xiran yahay abkan ayaa la soo hindisay 2007 sida online-ka ku daabacan 10 sano iyo dheeraad ayaa offline lagu ciyaari jiray waxaana asal ahaan loo tiriyaa Ruushka inkastoo sharciyadu uu ka helay Qubrus kayd ahaanna waxaa la sheegaa in 2 bilyan ay la taal Cabdi Fataax Aqyaar warbaahinta qaranka Muqdisho.